بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين bulshada Soomaaliya meel kasta joogan waa salaamantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh maantay oo bishu ay tahay 29 bisha Agost 2021 golaha midowga murashaxiinta waxay isku yimaadeen shir ay uga hadlayeen arrimaha taagan gaar ahaan xaaladaha la xiriira doorashooyinka arrimaha doorashooyinka ayaa looga hadlayay waxaana la isla gorfeeyay culaysyada ka jira dalka guud ahaan iyo gaar ahaan arrimaha doorashooyinka waxa hoos laga xariiqay afar arrimood oo waaweyn afartaas waxa ay kala yihiin koow meesha ay wax taagan yihiin iyo daaha iyo mugdiga galay iyo niyad xumida bulshada Soomaaliya soo gashay in ay aan la wada lahayn sababteeda laakiin hogaankii dawladda gaar ahaan madaxweynaha madaxweynaadkiisu dhamaaday daaha iyo mugdiga asaga oo mas'uuliyadeeda uu leeyahay arrinkaasna uu yahay arrinka keena golaha midowga murashaxiinta iyo Soomaalida qaybteeda kale inay muddo ku mashquulaan sidii doorashooyinka jidka loogu soo celin lahaa taas qodob waayo qodobka labaad waxa uu ahaa in la isxasuusiyay inay golaha midowga murashaxiintu u taagan yihiin sidii markii horeba ay ugu taagnaayeen in dalkaani doorashooyin xur iyo xalaal ah oo la isku halayn karo oo daah furan oo deganaansho ay ka dhalato dalka ay ka dhacdo oo hoggaan dawladeed lagu helo qodobka saddexaad waxa uu ahaa waxa wada hadal noo socdeen madaxda maamul goboleedyada oo aan u gudbinay dareenka aan ka qabno habraaca cusub ee soo baxay waana isu ballansanahay waxaana rajaynaynaa inay meel wanaagsan noogu dhamaan doonto haddii Ilaahay yiraahdo dadka Soomaalidana waa la wadaagi doonaa waxa ay nagu la dhamaato qodobka kale waxa uu yahay oo ugu dambeeya ra'iisul wasaaraha oo ah mas'uulka asaga iyo xukuumaddiisa loo xil saaray daadiinta arrimaha doorashooyinkana wada hadal ayaa noo socdo waan wada hadalnay waana kulmaynaa waxaan ka kulmaynana oo ka shiri doonana waxa ay tahay sidii Soomaaliya ay ku heli lahayd doorashooyin daah furan oo xor ah oo xalaal ah oo asagu hoggaankeeda uu xil saaran yahay annaguna saamilaydeeda aan nahay Soomaaliya waxaan rajaynayaa in arrimahaas lagu guuleysan doono doorashooyin isjiijid waa ay yeeshaan laakiin meel wanaagsan inay ku dhamaan doonto dareenka bulshada ay qabto waan ka wada dharagsanahay waan la qabnaa waxaan rabnaa in la address gareeyo oo la xalliyo arrimaha aanu taaganaana kuwaas waa mahadsantihiin